بسم الله الرحمن الرحيم for Holland xisaabta la yiraahdo waa xisaab aad iyo aad maanta la isticmaalo insha allahu tacaala xoogaa waxaan isku dayayaa inaan fahano xisaabtan sidan ayay u eg tahay six iyo tiye three iyo fem eight iyo three eight iyo fem iyo four iyo femton marka xisaabta saas ayay u eg tahay badanaa waxaana loo qoraa afartan nooc halkan ka arkaysiin six iyo tiye six iyo tiye iyo six iyo six element tiye iyo six til tiye afartan noocna waa loo qoraa xisaabta for Holland marka tusaale yar baan insha allahu tacaala halkan ku haysanaa for Holland mellan äpple och katter marka for Holland haddaan ku sameyno xisaabtan waxaan leenahay waxaan haysanaa tusaale tiye äpplen tiye äpple baan haysanaa iyo shan kat fem katter marka for Holland xisaabtaan ku sameynayno waa inaan u qorno sidii afartii nooc waa inaan u qorno marka hore waxaan leenahay tiye iyo fem kow haddana waxaan leenahay tiye element fem waxaan leenahay haddana tiye iyo fem waxaan leenahay oo kaleeto haddana tiye til fem saddex afartan nooc ayaa loo qoraa badanaa marka xisaabta for Holland intii la yareyn karo waa la yareeyaa marka xisaabtu waa inaad yareysid intan ka yareysid marka tiye iyo fem waxaa la mid ah två iyo ett två iyo ett två ett labo labo til ett ayaa la mid ah tan marka xisaabta for Holland intii la yareyn karo waa in la yareeyo sidan sababta ay ku noqotayna waxa weeye tiye toban haddii loo qaybiyo shan tiye iyo fem soomehen marka u qaybi halkan shan halkanna waxa u qaybinaysaa shan xisaabta waxay noqotay marka ett by två waxay noqotay labo laba iyo hal marka xisaabtan for Holland intii la yareyn karo waa la yareeyaa tusaale kaleetaan halkan idinku tusayaa femton iyo fem femton iyo labaatan iyo shan haddii lagu dhaho la mid miyaa saddex iyo shan xisaabtu waa haawi waa la mid sababta u noqotayna waxa weeye waxaad leedahay shan iyo toban iyo labaatan iyo shan baad u qoraysa marka hore waxaad u qaybinaysaa halkan three baa u qaybinaysaa halkanna fem marka markaad three iyo fem u qaybisid waxa ay noqonaysaa xisaabtu three iyo femton marka maanta xisaabtan halkaas ayay ku eg tahay waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullah